wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa kulan warbaahineed ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay koobjoog ka ahayeen wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka duqa caasimadda Hargeysa iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo guddida nabadgelyada caasimadda Hargeysa ayaa kulankaasi mid lagu shaacinayay oo diyaar garowga xuska munaasabadda 18 May ee 2019 iyo adkeynta nabadgelyada guud ee dalka iyo qabanqaabada munaasabadaasi waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu kulankaasi soo dhamaaday waxaana wiri maanta shirka waxaan u qabanay laba qodob oo marka ugu horeysa hawlaha nabadgelyada guud ee dalka iyo gaar ahaan nabadgelyada magaalada maxaan ku dhahday Hargeysa waxa hawshan ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud oo kamid guddiga qabanqaabada 18 May maalinta qarannimada Soomaaliland isla mar ahaantaana guddiga bilicda magaalooyinka iyo gaar ahaan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland labada qodob ee ka wada hadlaynay waxay ahayd sugidda iyo xoojinta iyo ilaalinta howlaha nabadgelyada guud ee qaranka iyo gaar ahaan howlgalka guddiyada maxaan ku dhahday nabadgelyada ee magaalada Hargeysa iyo ilaalinta guud ee bilicda magaalada Hargeysa qaabka ay u howlgalayaan una xoojinayaan howlahoodii nadaafadda iyo qashin ururiska shirkadaha u xilsaaran ururinta maxaan ku dhahday qashinka hawshaas markaa xog warana waan isasiinaynay saakana qolada dawladda hoose waxay ka soo wada shireen guddiyada nabadgelyada iyo shirkadaha qashinka labadaba Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.